noloshu alxayaa kullahaana waa challenges, nolosha gebigeedu waa caqabaad, nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay, noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo. keebaa diyaarutay asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah, wain tutic akthara man fi lard, dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan. sociologuna de maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar, koox yar baa hogaamisay bulshada weyne, xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa, dhankan loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan, theoryga xerada xoolaha. waxay dadkaba ka dhigaan inay dad xero ku jira yihiin, xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin. ilahina wuxuu le wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah. qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadii hore iyo wixii ku dhacay, iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen. waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen. marka tajribo ka horreysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa. waxaa kaloo qur-aanka ku yaala tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii, oo dee iyaba dhul muslim may joogin. yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd, madiinana gaalaa deganayd, carabina gaalay ahayd. midhmidh baa dadka uu islaamay, dhowrkaa qof oo uu islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta. afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliya ah haysta. marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno. taariikhdu qur-aanku ka warramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno. saxaabadii nebiga iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurbat alislaami aluulaa siday uga baxeen. waayo التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت القربة أرين فضود معها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكت المامية صحيح الجامع الصغير عن أنس بن مالك حديث كصاروري يأتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. ماشي إنه تشالنج يبو النبي قلت المامية ضدك وقت باكو إيمان دونا قفكو الدين تيسا إنه هايستو كل جنادو أي لم يتنين دحول هايستا. يعني الحل طبعا يناد قوطها وتشالنج هذاك وقت السيدة الدين تكون نقون دونتا إيمان دونتا. أما حديث ابن مسعود ورينا إن من ورائكم زمان الصبر اللي تمسك فيه أجر 50 شهداء منكم. معلومات دنبايا قف الدين تيسا إنه كل جناده ولم يدي كونتن إذن كانت كامدة من نبقوت المامي سيدة أوجد قرآن إلهي وحكا ورما إن من رير بنو إسرائيل ليرادا يهود reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisu taariikhdooda ka warramay. taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay. reer banu israa'iil nebiya ka dhashay, nebiyo badanoo qur-aanku ka tilmaamayo. dee israa'iil waa nebi yacquub inankiisiiyo maxay ah nebi yuusuf walaaladii oo iyana culammadu badhleeyeen nebiye markii dambe noqdeen. أنبياء بدن نبي سليمان، نبي هود معها سليمان أبيه، داود، نبي الله موسى. أنبياء بدن الرهر بن إسرائيل ودت صالحين القرآن كورمية بل إلهي وحكوت المامية إن يكمد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رهر بن إسرائيل وحكم إذا أئمة ضد لقد ضيده ودين إلهي كل جي markii ay ku sabreen inay waxooda xajistaan yaqiintooduna ay rasmi ahayd. yani laba midna ma gelin, waxan ay diinta haysteenna way rumaysanaayeen, way yaqiinsanaayeen. second to that obstacleski ka hor yimid, dhibaatadii ka hortimina umay leecin, umay dabcin. labadaas shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahay ayay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale. kuwaas reer banu israa'iil bay ka mid ahaayeen. waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inooga warramaya gruub kale inaynu reer banu israa'iil ka mid yihiin. bal gruubka kale aan eegna waxa ilaahay ku sifeeyey
marka hore ilaahay wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer banu israa'iil waa googoynay baa ilaahay yidhi dhulkaa lagu faafiyey minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilaahay leeyahy وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلهي وحده كوا قداشد وحمري qoladan maxaa calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool baynu islaamnimada dhaxalay waliba abiyo hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitab asalkana waxa la yaqaan qofka bini aadamka wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga laxa jeclo badan yahay waxa si fudud soo gala xataa dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaha aabaha ka dhaxashay inta badan sayidska dhalinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka la dhawr wasideen waxa odhan insha Allah ilaahay baa noo dambi dhaafi طبعا ilaahay dambiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilaahay leeyahay marka la iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa ghafuurur rahiim ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay ka soo horbaxay islaamnimada waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekeynayaan ilaahay waa ghafuurur rahiim ilaahay baa inoo dhaafi laakiin ma ha ghafuurur rahiim nima intuu rumeeyay wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wa yaatihim aradun mithlu ya'khuduhu ba ilaahay yiri tii kullabaad oo lamid haday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan ba ilaahay yiri ilaahay markaa wuxuu war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay xaq ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan qola waa nooca qola kalena ilaahay wuxuu yidhi waladiina yumassikuuna bilkitaabi wa aqaamu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waladiina yumassikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yidhi masaka oo bitadciifa luga alcarabiya yani waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado waxaa laga yaabaa dumar quran qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu iska laakiin kani waa qof raba maxay inuu xajisto kuwa xajisanaya baa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajirkooda dayici maaya ilaahay yidhi idan waa laba miduun inaynu dhahno insha allah sayuqfaru lana waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku waa arrimaha diinta oo dhamme ay noqdaan insha allahu inaynu sayuqfaru lana ku dhisno ku binayno على هذا المذهب قادنه يينا قادنا مذهب التمسك بالكتاب إنه حجسنه جيلكي هore saxaabadu siday uga baxeen sawir yaro kooban baan waxay ka siinaya afartii suuradood ee quraanka ugu horeeyay soo dega culimadu waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qaybaha ugu horeeya inay quraanka u soo hordegeen waa laga yaabaa riwaayaadku isdhaafinaya afartan say u kala horeeyeen inaad aragto laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horeeyay ayaa badiba culimadu tilmaamaan وسورة العلق انت ugu horeysa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آياتك ugu horeeya وسورة المدثر آياتك ugu horeeya
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وسورة المزمل آيات كوهرية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آيات كوهرية. هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. علماء يدهدان waxyigii koowaadee dee nebi maxamed ku bilaabmay wuxuu ahaa waxyi aan si fudud loogu sheeginay si xooggan loogu sheegay. yacnii dhowr jeer buu jibriil halkan qabto intuu nafta isugu keenay nebiga uu yidhi iqra uu nebigu lahaa ma ana biqaari xataa markay neefta ku dhigaadha uu sii daayo uu leeyahay iqra. waxay culamaadu yidhaahdaan alaslu fi tacliim waa in si fudud la isugu sheego laakiin waxay dhahay haadihi almasala waxaa la rabay bay leeyahay fi qimati alintibaahi waasaxwa in arrinka soo socda wax fudud inaanu ahayn in la soo jeediyo. afarta shay maxay sheegayaane ugu horeeya aayaadkani ka warramayaan. laba suuradood masalat alcilmi bay ka warramayaan. iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalami callama alinsana maa lam yaclam iyo nuun walqalami wamaa yasturuun. waxay culammadu yidhaahdaan waxa ay mas'aladani tilmaamaysaa biljahli inaan diin lagu xejin karin iyadoo jaahil layay inaan waxba la xejin karin. asalka diintuna inay ku salaysan tahay carab wakhtigeedii waxaa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeya inay ahayd baahiyahay qabtee kale waxaa laga yaabaa haddii adiga lagu odhan lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaaladda hala raadiye kana la raadiye wax badan oo kale inay tilmaami lahayd. laakiin masalatu tawxiidi waalcilmi bay yidhahdeen waa wada socotay. asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhire la ogaado cilmi baa lagu xejin karaa waa shayga koowaadee laga fahmaya bay yidhahdaan. shayga labaadee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyihiin qofka bini aadamkii ama isagaa dacwo wada ama isagaa dacwo loo wada ama adaa lagu raadaynayaa adaa sii milmayo sii socda maalinba in muquuranaya ama adaa wax raadaynayo gruubkaaga isku dayaya inaad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya. si awgeed baa ilaahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir. kan istuuduubayow baa la yidhi kacoo dig kacoo diin sheeg rabbigaana weynee wa thiyaabaka fatahir naftaada iyo qalbigaaga iyo maradaada iyo waxaaga oo dhan daahir yeel warujsa fahjur xumahana ka hijrood walaa tamnun tastakthir waxaad wadana ilaahay dartii u wad xolaa ku raadinin adoo ku badsanaya ha samaynin walirabbika fasbir jidkaa haddaad qaadana mashaakil baad la kulmaysaaye sabir oo adkaysaa la leeyahy. yani waxa lagu bilaabay nebi maxamed haddaynu dhahno calayhi salaatu wasalaam waaba aayaadkii labaadee ku soo degay sida culamo badani qabto cilmigii ugu horreeyey intuu leekaa waa iqra iyo waxoogaa riyooyina cilmi intaasuu hayay. haddana iyadoo cilmigu intaa ku kooban yaha waxaa la yidhi maxay mabda'a faafi mabda'a bilow. idan waxay idhaahdaan khayru difaac si laysu difaaco waxa ugu fiican bay idhahdeen adigu weerar gasho in adiga marka lagu arko la yidhaha war waa kii wadaadkeen buu diin sheegay xagga inooga du adigu inaad tahay qofka wax raadaynaya isku dayaya dadka inuu raadeeyo. laakiin insaanku dhibta tirada badan le uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab a la leeyay mooyaane. ساوغيت با وحا ليري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحلي كان استوضوبا يو kac kaysdadayow baa la yidhi kacoo ilaahay isu taag. markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa
استنورمال كبني آدم كاللغو يقانو حويان إنه فكروا أصحابتي سي عدي وحديد كلا هوار ما أنت يا مشكلة دنيا ياكو عاون كان مثلا بروبلم دقالك وقضعي marka koowaad aad mushkilada xalil kare waxa sooraysa bartaloyad wax ka soo abaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya madadkii xidhiidkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkana tiraado warbal waxa ama hemo inaad wax ka weydiin inaad wax ka heshaba suurtagal qofka muslimka ee dhabta ah markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiya waxa weeyaan rabbus samaawaati wal ardi inuu xidhiid la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay إله قعنتي سوح ولي بكو تشيران الباب كي سينو قراعه ساوغيت بان نبي محمد بركي دبتو كهرت بإلهي وحلي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كانس دادا يو كانس تضوبا يو كع هبينكي انتي سبضاني يرمو يعني نسكي أما وحير كي يريبا ليل حلقو علي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بإلهي ورعلص بالغودي بيه دعودني الدين كان يا قرآن كان يا سيستم كان ينتقاضى أعرف فضود ما هبا إلهي لي ورعلص بالغوسين يا لكن ور كان علص وحقو فضوينا يا وامحي حديد كاد إلهي لا كلما حديد كانوا رب لنا يو ضعيفه اسبدل كانوا لوش إني حق حمي ودقدقية markasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobaya idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara هذا الدليل هيسنين واتشبيسا إذن علمين يهي لابد شهوات كنا حديد كاد إلهي لا دي بدني دي سريحة إن دي إلهي حديد بدن لا يالط فافنت الدين تنا environment بيكو أبو ريسات كل إحنا ولا كرتيد إن الدين تفافي سيد ومركاسي أتفافي سيد صحابة دي النبي مركا مسائل كاكو أتكايستين noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la torture gareeyo qaar la dilo qaar torture-ka ku dhinta isagoo nabi maxamed arkaya calayhi salaatu wasalaam qaar torture lagu dilo saxaabadiisa ka mid ah qaar sidii loo torture gareynayay iyagoo tii u dambaysay laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بإلهي مؤمنين توحى كمد الرج كرن شيء وحي إلهي وبلن قادين شو قضية الصدق إذا كلمات دين كرن شيء وحي محي بلنا إلهي لقالين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بلده وحكم ده قار سدا كل طي يقول شتكي كتاجن يقار سجية وضدا سنة هيا إلهي مركو صحابة تلمامي وحلقو تلمامي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والرقبة إلهي لي كواسي أنا مشغولين تجارة يا بيع يا وحقدستي يا بيع مش لعق حوكسيو أما الدنيا حوكسيو أنا كم مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكيس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا مرر بدن waxay dhahdaa su'aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxa kamida salaada iyo shaqada sheekh de shaqadii maxaan sameeyaa salaadii baa waayo shaqada xageena muhiima laakiin tan kala agteena taqiilka loo raaday shaqada qiil loo raadin meesidiyada shaqada waa shaqo waxa u baahan qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaadii iyo loo tukanay إلهينا وحطت الماما يا قولة تموحى لقسي فينيهين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار مالين بي كعب سنة يعني dad shaqada in laga eeriyo dhaqaale darradka yar cabsanaysa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhiga iyo wuxuba gelgelmaan
cabsida maalinta ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga ule number 1 ah cibaadadoodii iyo kooga kan ka waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lama sabaruu wa kaanuu biaayatina yuqinuun waladiina yumassikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaad ee nebiga ku soo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi alictizaaz biddiin yani ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxa qiimaha badan le inuu xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha ma diinkaa qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay wuxuuna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faano oo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aalu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictizaazu bidiin uu ka gedisan yihi diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxa le baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin مثلا dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid ah xarb alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay persia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama fogaa maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya 200 kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah is hortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين ka mid ah Sa'd ibn Abi Waqqas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynaa laga dambeeyay ka mid ah marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sa'd weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhex maro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tagay مثلا mid ka mid hadaynu soo qaadno Ribci ibn Aamir baa ka mid ah ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaroo gaaban buu wataa waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray deenin ay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha Rabi ibn Amr oo fars yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine hay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaca waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ii yeedhay anigu umaan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aal baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما ودقنو وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا الضون سنة إلهي يقول إن يدتكو الضوما ونقضان ودتكو حرية هلان فحنوسع عن أبو لي عبادة إلهي قاركو نقض waxaanu kaloo soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saarro ballaceeda u saarro haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay ee carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaa kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiima uma samaynayso waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladdiisa ku saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka بدبرك الدنيا كغفي عنه تاغن يحي انه معتز بالدين يحي دينتيسا wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taas waxay ka sanaysaa qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay hatta hadii sida kale dhan la idin ka xog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin war hal liidanina baa la yiraahdaa murugoonina idinka koreeya hadii iimaanu jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya salawaad adaynu tilmaamno oo saxaabadan reer Makka ah ee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam rabbiga say u muuqdeena en markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna ninka loo 10 al-mubashirin hogaaminayay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa saasaananu kula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale Umar wuu soo baxay وعرب فريه بيت المقدس إنه لو ريجو ماشنا يسقى فراه لو ديبو معاهدة دي لقالينا سداسي أيكو هركش وسأس عليه مركو ماشي يروسو شري أيو حصامر يدول دير يورب هلا يورب مدنا دبتنا الدابدي وفوشنين تعمر كده دقي والله بدي كبودنا الله بحي أيو الله بدي كبودنا هلكم كسوقاتي نيف كيسينا سوه قامي الله بدي نسكا صور نحصادي أبا عبيدة يا عيد مدى مسلمين ترقي سؤال ويني يا كهري مو أبا عبيدة وحولي عمرو ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم وريني إن مقالة ددتك دي مدح دينا يكو أركان سيدان أدقو نكن فايداني عقار دوبا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر أريقي ودي بصدق أديك عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبا عبيدة وحن شعلان الله ميدان أديك هينون يداه أبا عبيدة أديك وكاحشوني يقول لي لكن وان عقابي لها أنك لو أنا أديك هيني إنو ياي مركا وكحو ما يقول لي لو غيرك قالها ميدان أديك هين موركا سكا صوبح يقول لي دبتنا عمر وحو دي بقول نقضي تاريخ دودي أبا عبيدة بوأوغي لكن وحو يرربون isagoo amiirul muuminiin ku muuqda amiirul muuminiin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado laakiin Umar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna adalla qawmin dad aad u dulaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciiseeyo dad nagaga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayn dhulkaygii joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciiseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meelaan diintayada ahayn ilaahay waa naduleynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobayna waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa
إنه الدين تيسي حوق وحجستو إلهي سوى النبي محمد الله الله عليه الصلاة والسلام ومن ورائه صحابة الله الله وحليله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحوله حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي لغوسو وحي يدي حجسو waayo jid saxa baad ku sugantay baa ilaahay leeyahay jid qumman baad ku taagantay wainahu ladikrun laka waliqawmik quraankaas iyo waxyiga iyo diinta lagu soo dejiyena sharaf buu ku yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahay ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أو حلاني شيء كوات حويان إنه غربدا كقبحنه وحي أهل كتاب كهور إلهي كتل مامين كقبحيه إنه كقبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كقبحضي إنه معتز كوهانه ضد كفانية وان قرصنين دينتا ترينينو نقانو وحين لكل ما مركه إنه وحن شيغينا معناهيدو maaha nolosha dhan ba iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha waxa maya system dhan oo dhisan oo waxaan ka soo horjeeday inuu nimi laabud min tadhiya wa laabud in culayska horimanayo challenge say jiraan oo dhibay jirto laakiin waa maxay تحديات كاين جيسينيمو iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaal qura ma ahe geesinimada adabiga aba ka roon kalimatul haqq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xajisan karto ولذلك با إلهي غير بنو إسرائيل كي هاقاقي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقرون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها ليوبا إلهي للصبر والله الصبر لك تبال ليه مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كالو إذن كهر إيمانا ياي إذن كصبر بدن نبا إلهي ليه ورابطوا في ثغوركم قوابها أتكو جرتان إنه فيسيدين نحي جسته إلهينا كعب صدى وقوليسن دونتان با إلهي ليه سبحانه وتعالى انت كدب حينو باهنهي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ كو حكي سنينو هدنا انت اينو سف ضد وحوة ذكرنين انو وضنو marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka badhba u fahmaan cunfi iyo dagaal iyo qalafsaniyo in sida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso laakiin de martaate usulubna u noolow yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Aisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiska sheekhaynku warinayaan ولا نبي قوت مي يقعد ده كوتشيس تيس يو عاية بس واحد كوي هذا السلام عليكم السلام لام كلا جبودية لكن واحد لسكر جاي يدي اللي يري السلام عليكم السلام عليكم وجري كركا جهات وأخبار السلام عليكم نوا ربها كحفدية لما تقولي وانا كركا جهات السلام عليكم نوا موت يجري بلايو كركا جهات دبتنا عايشة انت عروتي مركبة waxay tiri بل وعليكم السلام واللعمة idinka arada alle iyo gaaridiisa nacdashi korkiina idinka ahaata bay tiri nabigu kaleey salaatu wasalaam isagoo kuwana maqlay wixii ay yiraahdeen Aishana maqlaya waxay tiri ayu Aisha hadana tala siinaya wuxuu leeyahay Aisha in allaha rafiiqun yuhibbu ar-rifqa fi al-amri kulli Aisha ilaahi waa rafiiq wa ku si dabacsan dadka u dhimriya يحب الرفق في وحول بنين سيد مرسل الله سمايو أي الله تعالى سبحانه وتعالى عايشة وحي مود نبغينا أنو مغلين ملا دمرتني يعني
warkibaanu maqlina awalam tasmac ma qaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahi rasuulkiisiyo qad qultu wa calaykum buu nabigu yidhi waa maqlay yani wa calaykum baana dhow soo gaabi waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayadda imaamu muslim waxay tilmaamaysaa in allaha tacaala rafiiqun yuxibu alrifqa ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كلام إمام مسلم ورينا الرجينية يدنا وحي شيء عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه حانو قدن لنا يوم عقيدة دينية مبادئ دينية أخلاق دينية دقن كينا دمان تودان حج سنو تا معنى هيدنا لقى ما فهم أيوه عنفي يو المشاكل كلام أبور لقى ما فهم أيوه وحا لقى فهم أيوه إنه عقيدة إسلامية يدقن كإسلامية ينقضوا الموضوع قضية كلام تلمامية وحوية وإنه كلا قرنا محان قادنا محان كتجينا وين كلا قرنا مينو ميد مينا وينو بابا إن ذوبان مسي اندماج هل كان مركز شوفتان ريال الله يدين شرح الله يدعم حي assimilation iyo integration dadka baad bay yiraahdaan geed toobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhaxeeyaan oo waxay galaan maxay integration geedtoog waa intaad meel isku qafilso xira yareeda wax walba may tiraahdo taade adigu bay ka suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxa kan kama suurtagalaha in dad meel isku qafili kareysana kaagi baa ku roonaa inaad isku qafisho waarad xaggan u soo bixin ku darsan kuna dewa adoo dhintay oo iska milanku waxa soo haray waxa iyaguna inagu wacdiyaan inaan u baahnay inaan fahamno la yiraahdo integration meel walba waxa la leeyahay integration politicians iyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneous way ka fududay bulshada kala gedisan ان تعددku iyo noocyadka kala gedisan waxyaabo qaar kood way ku fiican yihiin laakiin siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragtiyo isku dhan u jeedo dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integration ka ay sheegaan inta badan saas u badan yihiin laakiin adigu inaad integrateto waa sax laakiin laba weerood waa inaanu kala garanaa mal farq بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كوديانو أو وحول بكاق آذانو يين وحكا فائدنا أقولنا ككورسانو وحوين بول حياة وحي وحنفعية يعني دين تادا كهري مانينين إنه كقادنا ويان لكن مسائل كعقائد يا دين يا أخلاقيات كيني يا عبادات كيني وحينين إنه كتنازل معها إنه كتنازل معها بركوا إنه كلا جرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إنه يدعي دونته لا تتبعون سننا أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دونته أبو نبي يقولي ودوين كده كيدين كهرية تاكا يردون صحابة دي دمنتك كاهيدا وحسك صور عيسى دولك حريصة يا عين كان أبو وركا كلي مركز النبي وحولي ولبا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه أو لدخلتموه حتى هدي قد مسلوا لي قد مسع علي هدي قلان وكذا بقى لي يسمون النبي مركز واحد يا رسول الله اليهود والنصارى ما يهودي النصارى قال فمن يا كلام النبي يا كلا مالين كلو هدنا النبي وحو يري حديث كانوا كلا سورنا من قبلكم بالراعي دونتان مركز واحد الروم والفرس ما رومانس يو بيرشيان كا يا كلام النبي يري ابن حجر رحمة الله عليه مركو لبدا حديث بفسيره وحو ليهي وحي سياسة دولية يباب كاكو صاب سنة وضد الرومانس يو بيرشيان كا ايا راعي دونتان hadday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxa raacaysan maxay alyahuuda wa nasara idan asalku muxuu xadiidkan inoo tilmaamaya wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ah wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuudiya nasara muxuu kaga soocan yahay romanis iyo persian muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo aqaa'id iyo diin bad kaga soocan tahay maxaa wada leedin tajaarib al-insaaniya wixii ka tirsan
bini aadamku wuxuu experience ku dhaxlay aqoontan la sheegayo dhaminteeda badani waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tagayna inaynu garanno ilaahay markuu quraan ka warramayo anbiya ilaahay ka warramay fi suurati maryam baan rajaynaya anbiya ilaahay ka warramay nabi hebel marka anbiyada alla ka warramay ayaa ilaahay isku soo duuduuba wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadama wa miman xamalna maca nuux ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسب إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية نبي آدم يكوي نبي نوح يو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحي دلالي انت أنه هنون نبي إلهي لي إلهي آيات كي سبرك مقلان وأخضوا عنه وسجودا لكن جروب كان نبي هذا كبحسن با إلهي طلبا بهدنا فخلف من بعدهم خلف جروب بقوا ضبا مريبا إلى هيري ووضدوا دي كواعدهم حي سمايه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي يسكر راعين كواس النار تقليا مالوت الماما محان وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا waxaan u dan leenoo leenahay waa inaynu garannaa waxaynu haysanayno waa inaynu garannaa tajaaribtii hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa duul wixii la rabay inay ka tagaan mooye wixii la rabay inay xejistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah مثلا ilaahay wuxuu tilmaamaya watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay haddii ilaahay doonayo qofkani qof sugan buu noqon lahaa waa kaa la soo sheegay waxaa la yidhi famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaa kale sidaa maaha xoolaa kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay harariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma harariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegiyo haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maaha haddaynu wadadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonaya ninba intuu hayuunbuu xoorayahay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaytaankoo qura maaha dad mutarabisiinana inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsi taga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إن بدنوا أهل الكتاب كمدي وحي تشعلين باي لهيدين الدين تاني دين كبحيان إيمان كدبدين قال لما يدين عليان ولبا يقو حق وعد يهي مري وحقرتين حاسد نما دراديد باي لهيدي دي كواسنا ينوى جوغان مركا وحويان وضعي يو أدك شيطانو ميشا جوغا qolo kaloo kuugu aadhsanayso meesha joogta iyo adigoo labaclabacla ah hadday is heshaan dee arrinku waa khatar marka waa inaynu kala garannaa uun maxaynu kororsanaynaa maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaasi waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiye su-aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneed ee diintii waa inaad xejisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa adna caydhiya shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin oo nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam
markuu inoo tilmaamayay haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan in nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba fii sirbi ay fii qowmi aw fii mujtamaci aw fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwaa bariista yacni bulshadii ay isku waxa aaminsanaayeen ninka kuwaa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fii jasadi jidh ahaanna caafimaad qaba cindahu quutu yowmi maantaa wuxuu afka geliyana haysta kaa adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamaya يعني كاسي وحا يستا ألمن نفسي ولمن العقد ولمن الفكر ولمن السحي ولا وحي الشيغان ردنا يكور رمان أياكو صوروري لكن إنك وابرست في غير السرب جروب كي سعيد أنا إنك وابرست مبادئ أفكاري عقائد كلا قد سنة لإسكال هوري مادو كاسي مال خطر وجوغا مركز سؤال شو محيطاي haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii aa haysateen inaad haysataanoo wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo waqti dheeraada Soomaaliya markaad joogtay inta diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad laba laabkeed iyo saddex laabkeed ku bixisaa hadday dhaqaalatay hadday waqti tahay iyo hadday effort tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaanu aqbalnaa inaynu invest garaysano waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo macallimiinta masaajidka wax dhigtaa oo dee wadcigaba lama socdaan ama si fiican uma garanayaan kani waa caynkan you should be haddaad rabto teen rabno macallinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama Masar ka keena ama Soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah wax garanaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan mididinka waxayda bara laakiin maxay u baahan tahay inaad invest garaysataan inaad waqti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaa joogantuun Soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi war maxaad u cadayan weyday baa la yidho maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadaydaa anigaas wuxuu ka cawday inaanu waqti u helaynin cadaya inaanu waqti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca dee teena waa caynkaa haddaad tidhaahdo maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa goormaan diin bartaa diin la'aan baa kule wax iskala maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la dhimaadno inaynu invest garayno wixeenna sidii aynu u haysan lahayn oo haddaynu caqli ku invest garayno iyo haddaynu juhdi iyo time ku invest garayno haddaynu lacag ku invest garaynanaba waa inaynu tijaabinaa marka inteennina waa haysan karnaa إن شاء الله زيادتنا والراضعين كرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين